markii allah uu bisha iyo qoraxda iyo adduunka abuuray muddo dheer kadib allah wuxuu malaa'igta u sheegay in uu abuurayo ibni aadam oo ku noolaado dunida. markaas ayay malaa'igta dhaheen, rabbiyow maxaad ka abuuraysaa ibni aadam oo dhulka fasahaadinaya oo dhiig badan ku daadinaya? annaga ayaa kuugu tasbiixsanayno oona kuugu xamdinayno. allah wuxuu ku dhahay, waxaan ogahay wax aadan ogayn. malaa'igta waxay horay u arkeen jinniga oo horay allah u abuuray sida uu dhulka u fasahaadiyey oona dhiig badan ugu daadiyey. sida buuga ku qoran, allah intuusan aadam calayhi salaam abuurin ka hor wuxuu abuuray jinka, kuwaas oo dunida fasahaadiyey oona dhiig badan ku daadiyey. allah wuxuu amray in jinka la halaago oo keliya laga tago ibliis. ibliis wuxuu ahaa inta allah uumay kan keliya allah caabuda. ibliis waxaa la keenay samada oo wuxuu ka mid noqday malaa'igta. muddo kadib allah wuxuu malaa'igta ku amray inay dunida caro ka soo qaadaan. malaa'igta allah ayay adeeceen, dhulka ayay caro meel kala duwan ka soo qaadeen. sidaas darteed ayaa maanta waxaa aragnaa inay jiraan dad kala duwan muuqaalkooda, dabeecadooda, midabkooda, dareemahooda iyo fikradahooda. waxaana laga abuuray ayaa kala duwan. sidaas ayaa annagana ku kala duwannahay. haddii aan rabno inaan isla wada noolaano, sida keliya oo ugu fiican aan ku wada noolaan karno waa inaan is-aqbalno oo aan aqbalno inaan kala duwannahay. kala duwanaashahayna inay noqonin sabab aan ku kala tagno oo isku dilno ama isku nacno. markay malaa'igta keeneen carada, allah ayaa carada wuxuu ka abuuray jismi ama qof ka samaysan dhoobo. kadib wuxuu allah u baxshay magaciisa aadam calayhi salaam. muddo dheer ilaa 40 sano ayuu nebi aadam dhoobo ahaa oo bilaa naf ah. kadib allah ayaa naftiisa ku afuufay nebi aadam. markay nafta madaxa gaartay, nebi aadam wuu hindhishay. marka nafta caloosha ay gaartay, nebi aadam baahi ayaa qabatay. markaas ayuu arkay furtada oo hortiisa taala. wuxuu isku dayay inuu soo qabsado si uu u cuno, laakiin wuu dhacay maadaama naftiisa ay gaarin lugaha. allah wuxuu ku amray malaa'igta inay nebi aadam sujuud ixtiraam ah u sujuudaan. nebi aadam waxa u bilowday inuu kala ogaado uuna barto yaa cadowgiisa ah iyo yaa ahayn cadowgiisa, iyo waxa ku dhacaya qofkii allah ku caasiyo. malaa'igtana waxaa lagu imtixaanay inay u sujuudaan qof laga abuuray dhoobo oo iyaga gacantooda dhulka kaga soo qaadeen. malaa'igta oo dhan way u sujuudeen ilaa aan ka ahayn ibliis. ibliis wuu iskala weynaaday in allah amarkiisa uu adeeco oo aadam u sujuudo. allah wuxuu ku dhahay ibliis, maxaa kuu diiday inaad i adeecdo oo aad ugu sujuudi weysay aadam? ibliis wuxuu ku jawaabay, aadam anigaa ka fiican. aniga waxaad iga abuurtay naar, aadamna waxaad ka abuurtay dhoobo. sideen ugu sujuudaa qof aan igu labal ahayn oo iga hooseeya? allah wuxuu ku amray ibliis in jannada laga saaro, waayo kibir iyo isla weyni qof ku jirto uma sugnaanin inuu jannada ku raaxaysto. ibliis oo aad u xanaaqsan wuxuu dhahay, allow waan baxayaa, laakiin waxaan ku weydiisanayaa inaad ii sugto oo aan dhimanin ilaa maalinta qiyaamo laga gaarayo. allah wuxuu ku dhahay, codsigaaga waa lagu siiyey, waa laga aqbalay. xanaaq darteed ibliis wuxuu allah balan kula galay inuu dad badan jidka jannada ka leexin doono. nebi aadam waxa ugu horreeya oo la baray waa cilmiga. markii allah uu baray nebi aadam wax walba magacyadooda, markaas ayuu malaa'igta u keenay. malaa'igta ayuu wuxuu weydiiyey, waxaad sheegtaan waxa hortiina yaalla magacyadooda. markaas ayay waxay ugu jawaabeen, subxaana allah, su-aasha aadna weydiisay jawaabteyda ma hayno, cilmigeenna kama badna inta aadna bartay. markaas ayaa nebi aadam lagu amray inuu u sheego magacyadooda. nebi aadamna wuu u sheegay. nebi aadam keligiisa ayuu jannada ku jiray. wuxuu dareemay kelinimo. maalin ayuu seexday. markuu soo kacay ayuu wuxuu arkay gabar qurux badan oo fiirinayso oo agtiisa joogto. markaas ayuu wuxuu weydiiyey, yaad ahayd? waxay ku jawaabtay, gabar. wuxuu weydiiyey, maxaa lagu abuuray? waxay ugu jawaabtay, si aad igu hesho xasilooni, inaad igu dareento xasilooni. malaa'igta ayaa waxay aadam weydiiyeen magaceeda, iyaga oo raba inay ogaadaan aqoontiisa intay gaarsiisan tahay. wuxuu ugu jawaabay, xaawa. waxay weydiiyeen, xaawa maxaad ugu magacaabay? wuxuu ugu jawaabay, sababtoo ah waxaa laga abuuray wax nool. xaawa waxaa laga abuuray aadam feertiisa
midda ugu yar. Allah ayaa wuxuu ku dhahay Xaawa iyo Aadam, jannada gala, waxaad rabtaan cuna, meesha aad rabtaanna ku raaxaysta, laakiin ha u soo dhowaanina halkan geed. Haddii aad halkan geed ka cuntaan mirihiisa, waxaad ka mid noqon doontaan kuwa naftooda dulmiyey. Shaydaan ayaa labadooda nebi Aadam iyo Xaawa waswaasiyey, oo wuxuu ilaawsiiyey balantii alle ay la galeen, oo ahayd inay cunin halkan geed oo keliya. Shaydaan oo iskaga dhigaya daacad, wuxuu ugu dhaartay in uu ula rabo wax wanaagsan labadoodaba. Wuxuu dhahay, haddii aad miraha geedkan ka cuntaan, weligiina ma dhiman doontaan, waxaadna noqon doontaan malaa'ig. Nebi Aadam iyo Xaawa waxa ula weynaatay waxa ay heli doonaan haddii ay cunaan miraha geedkan. Waxayna ilaaween nicmada uu Allah siiyey iyo balantii Allah ay la galeen. Sidaas ayay miraha ku cunayn. Markay cuneen miraha, isla markii waxaa isbedelay jabigii farxadda iyo raaxada badneed oo ay ku jireen. Waxa u soo muuqatay cooradooda. Isla markii waxay ku ordeen inay isku daboolaan baalaha geedka si ay cooradooda u asturaan. Aadam qaladkiisa markuu arkay, aad ayuu ugu murugooday. Allah ayaa wuxuu weydiiyey Aadam, miyaan kaaga digin inaadan cunin miraha geedkan? Miyaan kaaga digin in shaydaan uu kuu yahay cadow? Aadam wuxuu qirtay inuu gafay. Isla markii wuu toobad keenay. Wuxuu Allah weydiistay in la cafiyo oo loo naxariisto. Allah wuu cafiyey nebi Aadam iyo Xaawo, laakiin wuxuu ku amray in jannada laga saaro oo dunida loo soo dejiyo. Aadam iyo Xaawo waxaa loo sheegay in dunida ay ku noolaan doonaan, waxaana loo sheegay in dunida ay ku dhibaatoon doonaan oo ay dhexdooda isdili doonaan, in xanuun iyo faqri ay arki doonaan. Waxaa kale oo loo sheegay in dunida ay taalo raaxo. Raaxada dunida waxaa ka mid ah caafimaad, iimaan, ilmo iyo maal inaad haysato. Waxaa kale oo loo sheegay in Allah uu u soo diri doono nebiyaal uu nebi Aadam u horeeyo iyo kitaab, kuwaas oo noogu toosinaya jidka jannada haddii aan raacno. Laakiin ibni aadamku xornimo ayaa la siiyey, uu ku kala dooran karo in labada jid midkuu doorto uu raaco, jidka jannada ama jidka naarta. Sidaas darteed, Allah wuxuu dhahay, qofkii hanuunka aan u soo diray raaca, sida nebiga iyo kitaabkiisa, markaas dhib iyo murugo midkoodaba ma arkaysiin. Laakiin kuwa diida hanuunka alle xaggiisa kaga imaaday inay raacaan, waxay galayaan dhib iyo ciriiri iyo walwal adduunyo. Aakhirana waxaa u dambaysa naar inay galaan. Muddo kadib, markii dhulka loo soo dejiyay nebi Aadam iyo Xaawa, waxay dhaleen 2 mitaamo, Qaabiil iyo walaashiisa. Kadibna waxay dhaleen 2 mitaamo kale oo kala ah Haabiil iyo walaashiisa. Qaabiil wuxuu ahaa beeraley, wuxuu ka shaqaynayay beeraha, halka Haabiil uu ahaa ari raac, wuxuu ilaalin jiray ariga. Markay wiilasha iyo gabdhaha weynaadeen oo ay xoogaysteen, Allah ayaa wuxuu Aadam ku amray in Qaabiil loo guuriyo Haabiil walaashiisa, Haabiilna loo guuriyo Qaabiil walaashiisa, si dadka loo badiyo. Laakiin Qaabiil wuu diiday inuu guursado Haabiil walaashiisa, sababtoo ah wuxuu arkayay in walaashiisa ay ka qurux badan tahay Haabiil walaashiisa. Aadam ayaa wuxuu ku dhahay labadiinaba, waxaad ma ka geysaan qurbaan. Qofkii laga aqbalo ayaa guursanaya gabadha. Haabiil wuxuu qurbaan ahaan u geeyey ido qurux badan oo cayilan oona caafimaad qaba. Laakiin Qaabiil wuxuu geeyey furuutada ugu xun oona halaawday. Allah wuxuu ka aqbalay Haabiil qurbaankiisa. Qaabiil aad ayuu ugu xanaaqay midaas. Wuxuu walaalkiisa ku dhahay, sidee adiga lagaaga aqbalay oo aniga laygaga aqbalin? Waan ku dilayaa. Laakiin Haabiil wuxuu ugu jawaabay, Allah wuxuu ka aqbalayaa kuwa taqwada leh oona ka cabsada. Qaabiil shaydaan ayaa ka xoog badiyey oo naftiisa waxay jeceshahay ayaa ula weynaatay. Wuxuuna sidaas ku dilay walaalkiisa. Asigoo murugaysan oo aan ogeyn meesha uu geyn lahaa meydka walaalkiisa, ayuu arkay shimbir aasaysa shimbir kale. Markaas ayuu asigana sidaas ku aasay walaalkiisa. Haabiil waa qofka ugu horeeyey oo la dilay, waxaana loo dilay dulmi. Muddo kadib, Aadam iyo Xaawo carruur kale ayay dhaleen. Markii Aadam geeridiisa ay soo dhawaatay, wuxuu Aadam u doortay wiilkiisa Shiith in uu dadka Allah xasuusiyo inay caabudaan. Wuxuuna ilmihiisa oo dhan u sheegay in Allah uu u soo diri doono nebiyaal oo kala duwan, laakiin waxay ka sinaan doonaan fariinta ay wadaan. Fariintaas oo ah inay dadka ugu wacaan caabudida Allah si jannada ay ku galaan, iyo in ay shaydaan ka dheeraadaan, iyo in ay kaga digaan in shaydaan uu yahay cadow uuna rabo inay naarta ay u raacaan. Aadam markii geeridiisa la gaaray, wuxuu ilmihiisa ku dhahay, waxaan dareemayaa baahida miraha jannada.
ilmihiisa markay arkeen aabbahooda oo xanuunsan waxay u baxayn inay u keenaan mirahaas. malaa'igta ayaa jidka ugu hor imaaday. waxay weydiiyeen, ilmihii aadamow, maxaad raadinaysaan? waxay ku jawaabeen, aabbahiina ayaa xanuunsan, wuxuu rabaa miraha jannada. waxaa loo sheegay ilmaha inay aabbahooda dib ugu noqdaan. waxaa la gaaray dhammaadka wakhtigiisa. malaa'igta markay nafta ka qaadeen nebi aadam calayhi salaam kadib karfina ayay ku duubeen, wayna ku tukadeen, kadibna qabrigiisa ayay ku aaseen. waxayna dadka u sheegeen in sidaan oo kale ay sameeyaan markii uu qof ka geeriyoodo. intaas ayaa waxaa noogu eg qisada nebi aadam calayhi salaam. waxaan haddan iila wadaagayaa 2 fikrado oo muhiim oo aan ka faa'iiday qisada nebi aadam calayhi salaam iyo xaawo. fikradda koowaad, dadka qaar waxay aaminsan yihiin in xaawo ay ahayd sababta nebi aadam jannada loogu soo saaray. shaydaan ayaa xaawo wuxuu ku dhahay, biyaha fiiri. markay biyaha fiirisay waxay aragtay gabar, markaas ayay maseertay. markaas ayaa shaydaan wuxuu ku dhahay, aadam, gabadhan ayuu kuula qabaa. markaas ayay maseertay xaawo. waxay aadam ku dhahday, haddii aad i jeceshahay geedkan cun. markuu cunay, sidaas ayaa labadooda jannada looga soo saaray. waa sheeko dadka iska soo abaabulay oo aan ku arkin buugga qisooyinka nebiyada uu qoray ibnu kathiir. sheekada kale oo baybalka ku qoran waxay sheegaysaa in xaawo ay cuntay miraha geedka kadibna ay siisay aadam. sidaas ayaa jannada looga soo saaray labadoodaba, aadam iyo xaawo. baybalku wuxuu dembiga jannada looga soo saaray aadam iyo xaawo saarayaa xaawo keliya. xaawo dembiga ay gashay darteed waxaa lagu iqaabay inay caado u imaado oona uur ay qaado. caadada iyo uurkaba waa iqaab allah ku iqaabay xaawo iyo dumarka oo dhan ayay diinta kiristaanka aaminsan yihiin. waxaa lagu tilmaamay in sheekadan ay tahay fabrication, wax aan jirin oo dad iskaga dardarsaday. fikradda kale waa, haddii aadam iyo xaawo miraha geedka jannada cuni lahayn, weligeena jannada ayaa iskaga raaxaysan lahayn saacadan. fikraddan inta badan waxaa keena fahandaro. allah wuxuu dhahay ujeeddada ibni aadamka uu abuurayo inay tahay in dhulka ay degaan oo ay ku noolaadaan. innii jaacilun fil ardi khaliifa. aadam waxaa loo sheegay in shaydaan uu cadowgiisa yahay. wuxuu aadam calayhi salaam ogaa uuna fahamsanaa in qofkii allah caasiyo la ciqaabayo. wuxuu arkay shaydaan in la ciqaabay markii uu allah ku caasiyey. laakiin aadam waxaa la siiyey xurnimo uu ku kala dooran karo inuu allah adeeco iyo inuu allah adeecin. kala doorashada waa waxa ugu adag oo ibni aadamka la siiyey. inta badan 90% wax walba oo aad haysato waa natiijo ka imaaday waxaad horay u dooratay inaad hesho. waxa aad cunayso, dharka aad gashanayso, qofka aad guursanayso, aqoontaada, dabeecadaada, hadalkaaga iyo wax badan. waxa aadan dooran karin oo aadan kontarooli karin waa meesha aad ku dhalatay iyo dadka ku dhalay iyo muuqaalkaaga cad ama madow iyo waxyaalaha lama filaanka ah oo kugu dhacaya iyo waxaad heli doonto mustaqbalka. laakiin waxaad dooran kartaa oo aad kontarooli kartaa sida ugu jawaab celin lahayd waxa kuugu dhacay ama aad hesho. tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad hesho lacag. sida aad ku heli lahayd lacagtaas adigaa dooranaya. inaad been sheegto, ama inaad dad xoogto, ama aad disho, ama inaad shaqaysato oo xoogaaga iyo aqligaaga isticmaasho. si walba aad doorato oo aad ku heshay lacagtaas, allah horey ayuu kuugu qoray inaad helaysid lacagtaas. laakiin adiga ayaa lagugu imtixaanayaa inaad doorato sidaad ku heli lahayd lacagtaas. aadam calayhi salaam wuxuu ilaabay balantii allah uu la galay, sidaasna wuxuu ku doortay inuu miraha cuno. laakiin mas-uuliyadda falkiisa ayuu horey ka qaaday asigoon ku eedeynin qof kale inay ka dambeyso dembiga uu galay. horey ayuu ka toobad keenay, halka shaydaan uu ka doortay inuu toobad keenin markii uu allah ku caasiyey. si walba ay ahaato, muhiimadda waa in allah uu ogaa waxa uu aadam samayn doono inta uusan samaynin ka hor. laakiin allah xoog jannada kagama soo saarin aadam calayhi salaam iyo xaawo. wuxuu siiyey xurnimo ay ku kala dooran karaan inay allah adeecaan ama inay adeecin. intaas ayaa waxay noogu eg tahay qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo xaawo.